subaxdii hore ee saaka ayaa xaafadda Sheekh Cali Jawhar ee magaalada Boorama lagu arkay waraabe ordaya waxaana arintaasi aan kala sheekaysanay Maxamed Cismaan Ismaaciil Shiine waxaana uu sheegay in waraabahaasi ay ku qabteen gacantooda isla markaasina ay geeyeen qol ku yaala gurigiisa xaafadda Sheekh Cali Jawhar oo waraabaha iyo ordaya saaka subaxii koobii lixdii aroornimo halka ordaya kidiga aatiis ayaa koor imiday markaasaan qabtay ulbaa ku qabtay ani mid kala hareeray mid baa marka ul igu qabtay markaan qoorta qabtay xarig baan ku xidhay xarig markaan ku xidhay saa u tay waan soo xardaleed waan soo qaadnaa kana keenay guri baan ku xidhay sidaas markii dambe aan ku haynimo god badan ku dhacay waan ka saaray intaan soo qaaday gabigiisiiba ana soo haya ayaan guri ku xidhnaa dara maqsad gelinay waxaana waraabahaasi uu ka yaabiyay dadweynaha magaalada Boorama oo iyagu u soo daawasho tagay isla markaasina ilaa maanta goobtaasi ku sugnaa dhawaan ayay ahayd markii taliyaha ciidanka booliiska ee Somaliland uu magaalada Hargeysa ka mastaafriyay waraabe dad badan waxyeelleen gaadhay waa Caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama.